tartanka quraan akhriska jaamacadda muqdisho oo soconayay muddo 2 maalin ah ayaa lagu soo gabagabeeyay muqdisho waxaa ka qayb galay arday ka socotay qaybaha kala duwan ee kuliyadaha jaamacadda ardada oo isugu jiray gabdho iyo wiilal ayaa ku soo bandhigay goobta akhris wanaagsan oo uu ku larnaa cod macaan waxaana ay ku tartamayeen 114 quraanka kariimka a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. gudoomiyaha guddiga tartanka quraan akhriska jaamacadda muqdisho Dr. Shari Cali Kabay ayaa sheegay in dadaal xoogan ay muujiyaan tartamayaasha. والله ardayda markaad fiiriso dabcan waa tartan hadii la yiraahdana qofku waa soo diyaar garooba dabcan wax lagu tartamana waxa u fiican quraanka in lagu tartamo oo khayrka lagu tartamo u fiican ardayda runtii aad ay u soo dadaaleen aad ay u soo diyaar garoobeen ardaydaasna in lagu kiraameeyo lagu sharfo ilaaha sharfay ardayda oo xafid quraanka qof sahlan ma ahan waxa waaye sidoo nabigeena u yiri sallallahu alayhi wasallam in qofka xafid quraanka ah wata waalidkiisa taaj loo xiri doono boqor laga dhigi doono waalidiintiisa waxa fursadaha uu wato tartanka heli doona ardada ka socotay qaybaha kala duwan ee kulliyadaha jaamacadda ee kaalmaha hore ku soo baxa sida uu tilmaamayo Ustaad Muuse Axmed Cabdullaahi oo ah madaxa arrimaha ardada ee jaamacadda Muqdisho waxaan leeyahay ardada ka soo qayb gashay ajir Allah idinka siiyo waalidiinta waxaan leeyahay dhalinyaradaas quraanka soo baray macallimiinta quraanka soo bartay oo ku soo dadaashay waxaan leeyahay dhamaantood ajir Allah ka siiyo jaamacadda laftirkeeda ajir Allah ka siiyo wayna ku mahadsanto mahad celinna waan ugu dareynaa tartankaas aan joogsanin 23 sano jaamacaddu furanta 24 sano la sii gala 24 sano aan hal mar istaagin oo arday ay mar walba ka soo qayb galayeen oo sidan loo sameeyay oo ardada markay ka qayb galaanna ay ku guuleysanayeen sanadka ku xigo sanadka la qaaday sanadka ugu soo horeeyay oo diraasadu furmayso inay ku dhigtaan lacag la'aan sifiriya tartankan quraan akhris ayaa sanad kasta jaamacadda muqdisho u qabataa ardadeeda si loogu dhiirigeliyo xifdinta qolka eebe waxaana ay fursad deeq waxbarasho ah u tahay ardayda kaalmaha hore gala